cumar cabduqaadir cartan tani waxay u ahayd wax weyn maadaama uu ka soo laabtay waddanka maraykanka isaga oo niyad jab dareemayo. maraykanka ayaa ka hor istaagay fursaddii ay siisay fifa uu kaga qaybgeli lahaa garsoorayaasha dhexdhexaadinaya koobka adduunka ee ka qabsoomaya dalalka maraykanka, kanada iyo sidoo kale mexico. laakiin markii uu kasoo ambabaxay istanbul sidoo kalena uu soo gaaray caasimadda muqdisho, waxay ahayd mid rajadiisa wax weyn ka bedeshay. soo dhoweyn ballaaran ayaa loogu sameeyey garoonka aadan cadde, halkaasi oo ay soo caga dhigatay diyaaradda turkish airways. sida muuqaalada aad ka dareemaysaan ama aad ka dheehan kartaan, bulshada qaybahooda kala duwan, waxgaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladdu dhammaantood wiilka waxa ay markaasi u sheegayaan inay garab taagan yihiin. soo dhoweyntaasi waxay ahayd mid mug leh oo ka dhacday gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde. cumar si kooban ayuu ula hadlay bulshada, waxaana uu u sheegay in waxyaabihii dhacay ay yihiin waxyaabo iska jira oo mararka qaarkood dhaca. intaas wixii ka dambeeyey waxaa loo soo ambibixiyey gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho. kulankii ugu horeeyey iyo sidoo kale markaasi safarkiisa waxa uu ka bilaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayuu u tegey, halkaasna waxa uu kula qaatay kulan kooban. ra-iisul wasaaruhu si mugle ayuu usoo dhoweeyey, waxaana uu u sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay, si walbay ahaatana loo baahan yahay asagu mustaqbalkiisa iyo dadaalkiisa inuu sii raacdeeyo. waxay ahayd mid kale oo weyn markaasi dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee xafiiskaas uu kala kulmay. si walba ha ahaatee, cumar cabduqaadir cartan garsooraha caalami ee heerka markaasi soomaaliyeed wuxuu ahaa mid niyadiisa uu ku ilaaway waxyaabihii uu kasoo qaaday maraykanka. intaas wixii ka dambeysay wax yar oo kooban kadib waxaa loo ambabixiyey madaxtooyada soomaaliya iyo halka dalka looga arrimiyo. halkaasi waxa uu kula kulmay xasan sheekh maxamuud, hogaamiyaha dalka. xasan iyo sidoo kale cumar waxay isdhaafsadeen arrimo iyo sidoo kale waxyaabo badan oo la xiriira soo dhoweynta. madaxweynuhu waa u dhoolla caddeeyey, sidoo kalena waxa uu u sheegay in dowladdiisu aysan marnabo ka gurgurtami doonin, asaguna uu yahay haybad qaran, loona baahan yahay inuu dadaalkiisa iyo sidoo kale qorshihiisa halkaasi uu kasii wado. wax walba waxayna noqon doonaan kuwo hagaagsan ayuu u sheegay xasan sheekh maxamuud, sidoo kalena loo baahan yahay cumar dadaalkiisa inuu sii laba jibaaro. cumar cabduqaadir cartan soo dhoweyntaas isku xigxigtay laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha aadan cadde, gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynuhu waxay ahaayeen kuwo si weyn markaasi saameyn ugu yeeshay noloshiisa gaarka ah. si walba ha ahaatee, waxyaabahaasi oo dhan waxa ay muujiyeen sida bulshada soomaaliyeed, dowladooda iyo sidoo kale ay u garab taagan yihiin garsooraha heerka caalami ee soomaaliyeed ee ku guuleystay garsooraha ugu wanaagsan qaaradda afrika. si walba ha ahaatee, cumar cabduqaadir cartan tani waxay u ahayd mid aad iyo aad markaasi ugu dhiiragelisay xaaladda iyo sidoo kale tallaabooyinka ballaaran ee halkaasi ka jira. laakiin aan ku xasuusiyo, markan waxay tallaabadu ka bilaabanaysaa garoonka tuulada ciyaaraha stadium muqdisho. halkan waxaa soo camiray shacab isaga yimid daafaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo gudahaba, waxaana ay dhammaantood u wada yimaadeen siday u dhiiragelin lahaayeen una garab istaagi lahaayeen cumar cabduqaadir cartan. halkan lama daawanayo koob ka tirsan ama ciyaar ka tirsan ciyaarta dowlad goboleedyada oo ka mid ahayd kuwa ugu xiisaha badan ee lagu ciyaaray garoonkan, sidoo kalena taageerayaashu ay soo camireen. laakiin muuqaalada aad arkaysaan iyo sidoo kale waxyaabahan waxa ay muujinayaan soo dhoweynta cumar iyo sida bulshadu ay ugu heelan tahay. dhalinyarada ayaa kor u sidsida cumar, sidoo kalena waxay u muujinayaan dadaal iyo sidoo kale farxad. cumar ayaana dhankiisa waxa uu muujinayaa sida uu ugu qanacsan yahay. hadal kooban oo halkaasi ka jeediyey waxa uu sheegay inuu markaasi aad ugu faraxsan yahay, shucuurtiisana ay si weyn isku bedeshay. si walba ha ahaato, dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha arrintaasi la xiriira waa kuwa keliya ee muujinaya sida uu xaalku yahay. cumar cabduqaadir cartan soo dhoweynta laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha, xafiisyada dowladda ilaa iyo stadium muqdisho waxay u ahayd wax maankiisa bedelay. sida uu asaguba ka dhawaajiyey, tuulada ciyaaraha waxaa halkaasi lagu qabtay ciyaar kooban oo markaasi u dhexaysay laba kooxood laguna maamuusayay isaga cumar cabduqaadir cartan garsooraha heerka caalami ee soomaaliyeed. soo dhoweyntiisa waxay noqotay mid si weyn caalamku haatan uu hadalhayo, waxaana la sheegay in dowladda maraykanku tallaabooyinka ay qaaday ay ninkan guul u horseeday, sidoo kalena ay u noqon doonto mid ifbax iyo sidoo kale qorshayaal kale uu ka faa'iidin doono. laakiin si walba ha ahaatee, waxaa la filayaa in cumar uu dib ugu laaban doono dalalka canada iyo sidoo kale mexico sida ay wararku sheegayaan. laakiin si walba ha ahaatee, maraykanku diidistiisa iyo sidoo kale waxyaabaha uu ku macneeyey ayaan ilaa iyo haddana la ogeyn, iyada oo sidoo kale mas-uuliyiin hore usoo maray maraykanku ay si weyn kaga hor yimaadeen qorshaha trump ee la xiriira in uu markaasi ciyaaraha iyo siyaasadda uu si weyn isugu qalday. si walba ha ahaatee, cumar ayaa haatan waxa uu muujinayaa
inuu si weyn ugu qanacsan yahay waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ee ugu sameeyeen gudaha dalka, waxaana dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la xiriira arrimahaasi oo dhan ay ku muujinayaan waxyaabaha haatan ka taagan gudaha markaasi magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Soo dhaweynta kala duwan ee Cumar loo sameeyey waxa ay noqdeen kuwo si weyn u bedelay maankiisa iyo sidoo kale maskaxdiisa, waxaana isagu laftirkiisa uu qirtay in markaasi bulshada Soomaaliyeed aysan u hagar bixin. Baraha bulshada qaybaha kala duwan iyo sidoo kale dhammaantood waxaa si weyn loogu taageerayay Cumar oo dadku waxay lahaayeen waan ku garab taaganahay wiilkeeniyow, si walba ha ahaatee Cumar